maxamuud sidaas wuxuu lahaa isagoo kursi raadinaya maanta hadalkiisii baa ku soo noqday nin naag uu furay weli ilmo ka dhalaya soo ma aha madaxweyne xasan sheekh ma sharci darro ayuu ku joogaa madaxtooyada mise sharci adduunka waxa ugu daran hadal aad horay u tiri inuu maanta adiga kugu soo noqdo siyaasad xumada madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayay tani qayb ka tahay barnaamijka qodobka maxamed cabdullaahi farmaajo iyo siday u koobiyeynayaan qolada maanta dalka maamulaysa haddaanan xaqiiqda iyo arrimaha taagan oo dhaba laga hadlin xal rasmiya lama gaarayo madaxweyne farmaajo qaladna waa lahaa saxna waa lahaa laakiin kadib maxaana helay miyaynu ka raysannay farmaajo mise waad u darsannay qaraxyo ayaa jiri jiray xilligii farmaajo laakiin hadda ma jiraan taa micnaheedu ma aha inuu farmaajo xumaa laakiin weli waxaa jira qolo dantooda mooyaane dan kale aanan haba yaraatee wax faa'iido ah iyo horumara dalkan aan la doonayn kuwa maanta talada dalka haya aflagaado gef iyo kala geyn bulsho waxaan ahayn ma ka haysaan haddii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu maalin dib isku dhegaysan lahaa wuxuu arki lahaa wixii uu shalay ku hadlayay iyo qaladku uu maanta ku jiro waxba soo korri mayso in qabyaalada lagu ilaaliyo madaxweyne xasan sheekh maxamuud ee runta iyo xaqa ayaa mar walba muhiim u ah bulshadu inay wax badan ka ogaadaan waxaan kuu soo gudbin doonaa warbixinada ugu dambeeya xaaladda taagan iyo siyaasaddii shalay iyo tan maanta oo aan mid u dul istaagi doono hadduu alla imo madaxweyne xasan sheekh wuxuu yidhi dalka marka aan soo noqdo qabya ii dhiman waana dhammaystiranaya kelmadiisuna waxay ahayd qabya ninkeedaa dhammaystira qabyadii waxay noqotay dhulboob shacab la barakiciyo iyo weliba qaran soomaaliyeed oo maanta muqdisho keliya laga hayo ummaddii soomaaliyeed kala tagtay haddii xaalku uu sidan kusii socdo saddexda bilood oo fooda lagu soo haysana marxaladda siyaasadeed ee dalka khatar weyn ayay wajahaysaa xasan sheekh maxamuud waxaa ka go'an in uu doorashada boobo culayso badanna way haystaan oo aan layska inatiri karin culaysada ugu xoogganee madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu la daalaadhacayo maanta waxaa kow ka ah arrinta taagan ee ku salaysan dhanka arrimaha dibadda iyo dhaqaalihii soomaaliya lagu kabi jiray oo aynan ka maarmin oo boqolkiiba 89 soomaaliya ay wey doonto 2026 gabagabada madaxweynaha muddo dhaafka ku jooga filla soomaaliya oo hadda xaaladdu ay ku xun tahay wuxuu raadinayaa waddo uu kacdoon ku abuuro islamarkaana uu eed iyo dembi ugu raadiyo siyaasiyiinta jilbaha dhulka ugu dhuftay mucaaradka caasimadda waxay madaxweyne xasan sheekh maxamuud maanta ay istaajiyeen meel cidla ah garab ma haysto dowladihii uu ku tashanayay sida dowladda boqortooyada sacuudi arabiya dhaqaalihii ay ka ballan qaaday gacan laguma hayo imaaraad ilamaa qadarna gacanta xasan sheekh maxamuud ma aysan soo gelin waxaan kuu soo gudbin doonaa warbixin aan dhinac walba ka eegi doono oo xaaladda dhabta ah ee siyaasadeed ee dalka maanta iftiiminaysa kusoo dhawow mar kale youtube-ka haddii aad ku cusub tahay waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe ii saarto haddaadan ku cusbayn horay noola joogtay mahadsanid taariikhdu waa 24 bisha 7 sanadka 2026 cabdulaahi balwaan baan ahay weli waxaan ku guda jiraa jadwalkayga maanta barnaamijyada istaba joogga aad mar walba kala socoto youtube-kan si aad ula jaan qaaddo ka mid noqon saaxiibada youtube-ka hore subscribe u saartay soo dhawaada dhammaantiin barnaamijka oo faahfaahsan ayaan hadda u guda gelayaa madaxweynaha muddo dhaafka ku jooga filla soomaaliya hadda ka hor wuxuu aflagaadeeyey maxamed cabdullaahi farmaajo sababtuu aflagaadeeyena waxay ahayd muddo xeleed baa kaa dhammaaday war si sharciya kuma joogtid filla soomaaliya war filla soomaaliya sharci baa lagu joogaa sharci darraad ku joogtaa wuxuu dhinac dhigay marka sharci darrada uu dalka ku maamulayo inuu farmaajo la mid yahay nin naag uu horay u furay weli ilmo ka dhalaya aflagaadada intaa la eg maanta sababta u xasuusinaya waxay tahay kow keebaa sharci darra maanta ku taagan yaa lamida nin naag uu horay u furay weli ilmo ka dhalaya madaxweyne xasan sheekh adduunyada waxa ugu xun hadal aad horay u tiri inuu maanta kugu soo noqo waxba kama duwana madaxweynaha waxa uu samaynayo nin gabar ay kala tageen weli ilmo u dhalaysa waxba kama duwana xaaskii ay kala tageen oo furay asagoo weli ay xaas u tahay oo kale waay xukuumadda maanta jirtaa waa saas sharci ma aha waa sharci darro dadka soomaaliyeed ee muslimiinta waxaan rabaa بكل الاحترام أنا مدحونا احترام أيون أفلقادين أفلقادنا أنا إجاهين إجانا الصوروبن
siyaasaddu barashay rabtaa siyaasaddu maaha laba jeer baa ilaahay calaf igaga dhigay inaan madaxweyne noqdo madaxweyne gacanta kaaga dhacday inaad Soomaaliya madaxweyne u noqoto mooyaane uma qalantid sida dhabta ah madaxweyne xasan sheekh mar labaad ayaan aaminay annagoo ilduufnay markii labaadna Soomaaliya oo dhammaystiran oo ka kooban maamul goboleed 100% oo garab taagnaa madaxweyne xasan sheekh ayaa lagu wareejiyay 15 bishii May 2022 maanta wuxuu ka dhigay kuwa uu qarankii Soomaaliyeed nacsiiyay maanta Baydhabo Jowhar Dhuusamareeb Garowe Kismaayo ummadda Soomaaliyeed ee halka degan waxaa la tusay dowladnimo abgaal ah oo aan meel kale gaarsiisnayn waxaa la tusay dowladnimo abgaala waxaa la tusay dowladnimo tol ah waxaa la tusay qof aan abgaal ahayn inuusan qiimo ugu fadhin qaranka Soomaaliyeed adigoo laga yaabay inaad 100% ummadda iyo midnimadeedii ka shaqeynayay ayaa maanta waxaad mutaysanaysaa marka aad dowladda madaxweyne xasan sheekh maxamuud ku daba feesho in lagu yiraahdo muwaadinka koowaad waa xasan sheekh qaraabadiisa kama xumi aniga laakiin runta la isku sheegay anigu xaqiiqada markaan iftiiminayo waxaan aniga ka xumahay ma hunguri iga begelin dan kama yeelan doono hadduu alla idmo laakiin runta kama baqo xaqiiqadana waa taas arka marka xaqiiqda dhabta ah madaxweyne xasan sheekh qabyaaladiisu waa qaawantahay qofka maanta ku qatalmayo ku tusaale qaado dadkii ka horreeyay ku tusaale qaado dadkii ka horreeyay waqooyi bari gaar ahaan beesha dhulbahante oo Soomaalinimada iyo dowladnimada Soomaaliyeed u bukay muddo aad u dheer u baahnaa aadna u qarribnaa dhulkoodana la yiri dhul lagu muraysan yahay weeye ayaa nasiib u yeeshay dowladda madaxweyne xasan sheekh laakiin nasiib darro ayay ku noqotay beesha dhulbahante markay muqdisho tageen ayagoo magacii ummadda Soomaaliyeed u dagaalamayay ayaa laga hormariyay nin aanan weligii dagaal midnimo Soomaaliyeed gelin qabyaalad darteed wallahi dhulbahante wax badan ay qarinayaan muqdisho waxay kala kulmeen oo dowladda xasan sheekh maxamuud ay kala kulmeen wax aqliga galaya ma qabyaalad qaawan oo cad waxay marka hore islahaayeen waad ka qadarin wanaagsan tihiin oo aad baa laydinkaga jeclaan doonaa walaalihiin daarood sida majeerteen mareexaan ama ogaadeen laakiin waxay ogaadeen iyaga unbaa daarood iskala saaree hal weji ayay muqdisho ka leeyihiin waana sababta niyadjabka maanta deegaankaasi ka jirta sababtay qabyaaladda madaxweyne xasan sheekh maanta isagay ku forortaa wixii uu shalay ku eedeynayay madaxdii isaga ka horreysay maxamed cabdi waare wuxuu yiri madaxweyne farmaajo wuxuu ahaa macallinkii siyaasadda dad badan su'aal bay ka qabaan waayo maxaa loo leeyahay ma ammaanba ma madaxweyne farmaajona laga gadayaa ma mar labaad inuu madaxweyne noqdaa la rabaa maya farmaajo waxaa koobiyeynaya xasan sheekh hadda taliyihii xasan sheekh waa taliyihii hore ee maxamed cabdullaahi farmaajo ma jiro meel uunan xasan sheekh ka koobiyeyn farmaajo xataa doorashada hadda socota wuxuu ka soo koobiyeeyey doorashadii 2018 doorashadii farmaajo 2018 ee kacdoonka ka dhalisay magaalada muqdisho oo hawiye uu dagaal ka qaatay waa doorashada uu hadda wado waa doorashadii badbaado qaran ee geela 1991 lagu soo qorayay ee hawiye diidanaa waa doorashada maanta xasan sheekh maxamuud uu wado war miyuunan farmaajo ahayn macallinkii siyaasadda waan wada jeedaa macallinkii siyaasadda oo bannaanka taagan waay laakiin xaqiiqda mar kastaba in la xusuusiyo shacabka waa waajib madaxweyne xasan sheekh isagoo muqdisho kaliya haysta oo gobol kale aanan awood ku lahayn ayuu wuxuu rabaa inuu kaligii taliya noqdo xasan sheekh muqdisho bas ayaa wuxuu damcinayaa inuu kaligii taliya noqdo 48 saac ee ugu dambeeyay waxaa la diyaarinayay qorshe tijaabo ah oo loogu talagalay siyaasiyiinta mucaaradka gaar ahaan golaha mustaqbalka waxaa la soo rogi doonaa markii hore waxaa la yidhi gawaarida cabdibilayaasha laguma ilaalin karo siyaasiyiinta mucaaradka hadda waxaa la soo rogi doonaa xataa AK47 laguma ilaalin doono qofka raba ilaalo dharcado wadanaya booliiska Soomaaliya ayaana mas'uulka ah qorshahaasi ma aha mid qarannimada kor loogu qaaday waaba jeclaa lahaa in nabadda la sii kordhiyo in madaxdu ay staafka iska dhigaan inaan arko madaxweyne ama wasiir dadka la shaahaynaya aadaan u jecelahay laakiin ujeedku kaas maaha
waxaa la doonayaa tijaabo lagu doonayo in lagu baabi'iyo siyaasiyiinta mucaaradka marka haddii xasan sheekh wixiisu aynan qarannimo ahayn oo uu doonayo inuu siyaasiyiinta mucaaradka mishimo kuma taageeri karo waxaan jecelahay nabadda waxaan jecelahay in qoriga la iska dhigo waxaan jecelahay dadka in la tuso magaaladu inay nabad tahay laakiin muqdisho oo mishin loogu dhigayo siyaasiyiinta mucaaradka layguma qaldi karo dowladnimo beera anigu taasaan diidaya anigu taasaanan ogolayn anigu khiyaanada ma jeclin haddaba waxaa la diyaarinayaa qorshe noocaas ah inay hirgeli doonto 100% ma filayo maxaa yeelay cid aaminaysa xasan gurgurta ayaana jirin sida dhabtii madaxweyne xasan sheekh waa looga adkaaday siyaasadda laakiin weli wuxuu wadaa derbiga inuu madaxa ku dhufsado inuu dadka isa sii nacsiyo xasan sheekh maxamuud wuxuu ka shaqaynayaa maanta in la sii noco inay ummaddu ka sii cararto in taariikhda dambe xasan sheekh maxamuud la iska ilaaliyo laakiin wuxuu moodaa inuu wanaag shaqaysanayo sida muuqata siyaasiyiinta mucaaradka xasan sheekh maxamuud iyo beesha caalamka oo iska hor keeneen maanta waxaa la marayaa heer ay muddo 60 cisho dhaqaalihii lagu kabi jiray dowladda rajadeedu maanta ay marayso 100% wax ka yar 10 taasoo ka dhigan in looga adkaaday arrimaha dibadda madaxweyne xasan sheekh in la istusay isaga iyo maraykanka in la istusay dowladihii dhaqaalaha ku bixin jiray Soomaaliya iyo madaxweyne xasan sheekh in looga adkaaday siyaasadii arrimaha gudaha oo maanta inuu wax dhaco mooyaane meel laga taabacsan yahay inaysan jirin dhaqaaluu bixinaya dadkiibuu laaluushayaa ummadiibuu wuxuu isku dayayaa inuu dhaqaalo uga faa'iidaysto laakiin tuulo ka mida muqdisho oo xasan sheekh dar alla lagu soo dhaweynayo ma jiro tusaale yar liibaan shuluq ayuu hadda u wadaa madaxweynaha galmudug wallahi waxaa ka shacbiyad badan wadaadka suufiga ah ee sheekh shaakir la yidhaahdo sheekh shaakir isagoo lacag bixin ayaa loo soo baxayaa inkastoon ogahay inuu yahay malxiis xasan sheekh u shaqaynaya anigu waan ogahay laguma gaadi karo mara laygu qayaani karo laakiin isku fiiri malxiiska qudhiisa isagoo lacag bixin ayaa taageeraha uu maanta ku leeyahay deegaanada galmudug aanu aragnaa sheekh shaakir laakiin maxay ku tusinaysaa waa un iska malxiis ugu dambayn liibaan shulqa madaxweynaha waa la isaga shaqaysanayaa waxaa la rabaa keliya in beesha caalamka la tuso dhaqdhaqaaq iyo loolan doorasho in ay galmudug ka socoto markaasaa waxaa naloo adeegsanayaa taatika jaahilnimo ah sheekh shaakir xasan sheekhu u shaqeeyaa waa malxiiska liibaan shuluq been layma sheegi kara aniga maxay taa ku tusinaysaa marka nafla caari xitaa hadday noqoto maanta in toos loo tartamo oo laga daayo sheekh shaakir malxiisnimada wallahi sheekh shaakiraa la dooranaya laakiin waa iska malxiisoo dee waa nin dee wax kastaba laga bixinayo laleeyahay isi soo saar siyaasadda ku soo biir meel bannaana imow annagu dee waa ku riixaynaaye adiguna kor isku sii qaad waxaa socda marka hadda madaxweyne xasan sheekh albaabadii siyaasadda xoog mooyaane horta xeeladii iyo farsamadii iyo uu ku socon jiray way isku soo dhammaadeen in la boobo dadka oo shacabka la indhasan caadiyo in dhaqaalaha iyo shaqo la'aanta looga faa'iidaysto Soomaaliya in markaa qof jeeb weyne ah la yiraahdo lacagta bixi anagana waa ku taageeraynaa meel ay gaarayso iyo si ay u mirar dhalayso wallahi inaysan jirin madaxweyne xasan sheekh muqdisho kaliya ayuu rabaa inuu Soomaaliya oo dhanba afduub ahaan ugu haysto 4 ilaa 5 qofood oo tuuga ah oo isaga la shaqaynaya albaab inay ka xiraan mooyaane albaab uma furayaan laakiin midda la rabo waxa weeye in qof walba uu ogaado dhadhamiyo xasan sheekh maxamuud qasaare mooyaane in aan wax faa'iido laga helin war nin shacabka u roon meel aan u raacno ayaa la helaya oo naxariis badan oo ummadii u diirnaxaya meel aan ku taageernaan helaynaa nin midnimada ilaalinaya oo dadka isku soo dhaweynaya si lagu taageeraa la helaya laakiin qof midnimada nacab oo maanta bal eeg ciidan uu ku daadgureynaya gaalkacyo qaybta galmudug ka warrama ciidankaasi haddii uu geyn lahaa furimaha hore halkay isku hor fadhiyaan ciidanka waqooyi bari iyo Soomaaliland kadibna burco ilaa iyo Hargeysa looga sifayn lahaa qolada Soomaali diidka ah ee calanka Soomaaliya nacab madaxweyne la taageero la qadariyo la qiimeeyo oo aan lahaa laakiin madaxweyne maanta ka shaqaynaya isku horkeenista gudaha beelo walaalo ah oo reer Puntland ayaa haddana wuxuu ku leeyahay dimuqraadiyadan rabaa horaa loo soconaya ninaan midnimada ku wanaagsanayn Soomaalinimo qadarinayn dowladnimada ixtiraamayn wadajirkii tuuray qaran Soomaaliyeed ee lagu ilaasho karo wallahi xasan sheekh ma jirto waa haddaan ilaahay ka baqayno qabyaaladuna aynan nugu weyneyn
wixii soo kordha xaaladaha dhabta ah ee Soomaaliya ka taagan daqiiqad walba kala soco YouTube-ka Naftahan Production nabadgelyo